saxaabiga la yiraahdaa wuxuu yiri aniga iyo laba nin oo kale ila socda ayaa nabiga soo waajahnay buu yiri iyadoo gaajal daraadeed aan dhagaa wax ka maqlayn buu yiri yani ahdu saxaaba ee koowaad waa soo qaxeen waa soo hijroodeen xoolo iyo wixii haysteen oo dhan waa lagala haray magaalada Madiino yar bay yimaadeen ahlu safa dad badan baa masaajidka nabiga iska joogeen waxba haysanin dabeetana المضاد بن أسود وحليهي أنا قايل الله من إنه كلامه وقاعد دراد ذهبت أسماعنا بقول وأبصارنا من الجهد لقاها أنا وحكم مقلنين أنا وحبطن كاركينين أيها النبي يسوع صبان دقني بقول هذا أنا بريدنا وكحشوني يعني يقع عين خاصية إن وحنا سيسنا ما ننهلين بقول نبي عليه الصلاة والسلام بقول وربلنا كان صدق ذي بوك حي لكن محو نبي هايستايا وسينيا gurigiisa waxa jooga 3 neef oo riyaa 3 neef oo riyaa buu yiraahdaa hal liso waa 3daas guriga jooga buu intaaseen wada cabaynaaye inoo qaybiya wuxuu waanu nimaadna waa lisnaa dabeetana 3dayadu inin baanu cabnaa in yarna nabigaanu meel u dhignaa marka uu nabigu yimaado calayhi salaatu wasalaam ayuu salaanaan ka hurdana toosinayn ka soo jeedaana maqlaya buuna salaamaa intuu masaajidka soo galo tukado ayuu salaantaana salaamaa buu yidhi deetana waxaanu soo qaadnaa intii yaraydaanu isaga u dhigno intii baanu siinaa maalintii dambe ayuunbaa shaydaanku ii sheekeeyo waxaan idhi buu yidhi war nabi maxamed mala isagu kolley meelaha waxbuu ka soo helayaaye intaan soo kacay ayaan intiisi yaraydna ka laacay buu yidhi intii yaraydaa nabiga u dhigi jirnay waan soo kacay bilo xadiis saxiix muslim ku yaala intii yaraydna waan cabay buu yidhi markaan haddana cabay ayuu shaydaan haddana ii warwar geliyo wuxuu yidhi buu yidhi way xak bal waxaad samaysay intii yarayda nabi maxamed baad cabtay maanta ku habaari doonay ahlu naarkaad ku biiraysaa ayaan haddana isidhi buu yidhi anigoo warwarsan آخرية أدوم مبا شيبان سيدي بيقولين تايرة عاني دبتنا وان سوق عيبولين شملة ضيدي ريت سوق عطي مرة ضيران ستة بيقولي هدان حق سرى سارنا عقاي مغاني هدان حق وسناقا حق سراي مغانس هردا يقسو دقوي ديبو مرة ضيران بس ليه هو بوليو كل ما ضحان كنتو الضوبة كل عقاها انقالية حق سراي قاوما يعني حتى وحو هو ده ما هيستو هردا بو يقسو دقوي ديبو markaan cabaar galgashay ee hurdayga iman weyday ayaan waxaan isku dayay buu yiri inaan tala kala keeno waxaan sidii buu yiri war nabiga hadduu sidan ku yimaado oo gaajoodo oo ku habaaro ilaan liibaani may sidii waxaan isku dayay buu yiri inaan kaco oo muxuu samaynayaa marka kan midi baan soo qaatay buu yiri dabeetana waxaan sidii buu yiri dahaata nabigu yuu kugu gaajoonay صدح لما تقالوا نبي أو خال نفكر هاي ماشي تشوقي أيو صاقع مركا أنمي أيوم أنا ركيبولي هدانا نفكيو دربابا حكسي موديو أنا كتيران تبعتنا والله سيبولي بسريه بهدانا دبيو ضرره waan la saybuulo xoorka ka soo duulay dabeetana waan soo qaado nabigaan u keenay buu yiri nabigiiba wuxuu yiri calayhi salaatu wasalaam asharibtum sharabakum al-layla aanade badan buu arkaa war caawamiyadan intii ni cabin markaasaan yiri buu yiri ma cabna ilaahi rasuulkiisiyo ya rasuulullaahi ishrab adigu cabbaan yiri buu yiri markaasuu cabay dabeetana wuu ii dhiibay buu yiri markaasaan yiri buu yiri ya rasuulullaahi ishrab cab ishrab markaasuu cabay markaasuu ii dhiibay markaasaan yidhi buu yidhi cab ilaahay rasuulkiisiiyo markii uu nebigu cabbay oo aan gartay buu yidhi inuu si fiican u cabbay oo markii hore weelku madhnaan nebigu uu duceeyo wuxuu yidhi اللهم أسقي من سقانا وأطعم من أطعمنا بكل عيه ويقول مركي أنا وحبه لنا والنبي جوالك وحبك هو يرى مركاسان قص اللي يقولوا ده بتنا قص البان لا داعي
markaas wuxuu nabigu igu yidhi ixda sawatika ya Maqdaad xumahaaga mid ka mid ah weeyaan maxaad samaysay buu igu yidhi waanu sheegay qisadii baanu sheegay buu yidhi wartani waa naxariis xagga ilaahay ka timiye maad qolada kalena kicisid buu yidhi hayna la cabaanay ilaahay rasuulkiisa haddaynu labadeenu cabnay cidna dankama lihi buu yidhi salawaad haddaynu tilmaamno oo saxaabadan reer maka ahaa ee nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam rabbayay say u muuqdeena markii bayt almaqdis muslimiintu ay furteen bayt almaqdis ninka furanayay ciidankaasna nin kaloo casharatu lmubashiriin ah hogaaminayay cubaydata bnu ljaraax ayaa ciidamada watay dabeetana qoladii masiixiyiinta meesha joogtay waxay yidhaahdeen shardi ah furaha sulxi baanu gelaynaa saasaananu idinkula heshiinaynaa laakiin furaha wuxuun baanu u dhiibaynaa amiirulmu'miniinkiinu ha yimaado isagaanu furaha ku wareejinaynaa sidii buu ku soo baxay abu cubayda cumar buu la hadlay wuxuu yidhi nimankii saasay yidhaahdeen dee haddaad noo iman karaysa kaalay cumar wuu soo baxay wuxuu rabaa firihii bayt almaqdes inuu la wareego meeshana isaga furaha loo dhiibo mucaahadadii la galayna sidaasi ay ku hirgasho wuu soo socday markuu meesha in yar u soo jiray ayuu wuxuu soo maray dhul dhiidhiyoo roob helay oo dhooba midhana dabeetana daabadii uu fuushanaa intuu cumar ka daadegay oo labadii kaboodna la baxay ayuu labadii kaboodna halkan ku soo qaatay neefkiisiina soo hogaamiyey dhoobadiina iska soo dhex socday abaa cubayda iyo ciidamadii muslimiinta raggii soo dhaweynaya ka hor yimo abaa cubayda wuxuu yidhi cumarow ma jeclin maa yusiranii ana ahlu lbaladi istashrafuuk xadiidka xaakim warinayo magaalada dadkeedii iyo madaxdeedii inay ku arkaan sidan adigoo ninkan faydan ee cagaa dhoobada kule ah in lagu arko maan jecli buu leeyahy cumar eraygii wuu dhibsaday adiga cidan awah low yaqul hada hayruk buu yidhi abaa cubayda waxaan jeclaan lahaa midaan adiga ahayn inuu yidhahdo abaa cubayda adiga waa kaa xishoonaya buu leeyay laakiin waan ciqaabi lahaa nin kaloo aan adiga ahayn inuu yahay marka waa ka xumay buu leeyahy low hayruka qaalaha mid aan adiga ahayn mu warkaas ka soo baxa buu leeyahy dabeetana cumar wuxuu dib ugu noqday taariikhdoodii abaa cubaydaba waa ogiyey laakiin wuxuu yaro rabuun isagoo amiirulmu'miniinku u muuqda amiirulmu'miniin xagga dharka iyo haybadda inuu meesha yimaado laakiin cumar wuxuu ku leeyahay waxaanu ahayn inaa kunaa adalla qowmin dad aada u dullaysan baanu ahayn ilaahay diintan buu nagu ciseeyo dad nagaga dhigay buu leeyahy markaanu carab ahayna dhulkaygii joognay dad dullaysan baanu ahaan jirnay laakiin ilaahay wuxuu nagu ciseeyo nagu sharfay diinta tan haddaanu ka raadina buu leeyahay sharafta meel aan diintayada ahayn ilaahay waa na dullaynaya ilaahay diin buu nagu sharfaye waxaan diin ahayn haddaanu sharaf ka raadina waa dulloobaynaa maxaynu uga dan leenahay waxaynu uga dan leehay qofku muctas bidiinihi inuu rumaysnaado in wax ka maqan yihiin inaanu ogeyn bidhbidhkan adduunya inaanu qiimo badan ku lahayn taasi waxay keensanaysaa inuu diintiisa xoog u xejisto bal aan laba mucqad laba qof oo kursi ku dul fadhiyaan tilmaamo falastiin waa maqashaan iyo urur xamaas la yidhaahdo yuhuudda jihaad kula jiro iska dhiciyo dunida wixii bam yaallay lagu garaacayo weli istifaacaya ururkaa ninka sameeyey ee hogaaminayay hagayay korsuu dul saaraa meel dhaqaaqdo jidhkiisii ma jirin markuu wax akhrinayo waraaqda kitaabka qur-aan ee uu akhrinaya inaanu dhalay u rogi jiray maalin bay waxay yidhahdaan inanku dhalay baa seexday ka gamay si uu rogaa buu garan waayey kitaabkii uu akhrinaya waraaqdiisa carabku isku dayay inuu ku rogo meel dhaqaaqda carab buu leeyahay maca daalik xoogga yuhuudeed buu hortaagan yahay dhakhtarkiisaa yidhi aad baad u tamar darraysa waxaad u baahan tahay na siino dabeetana wuxuu yidhi may ee masaajidka ha laygeeyo ramadaan bay ahaydee waa caawa soo jeedayaaba waa cibaadaysanayaa soo jeeday isagoo kursiga lagu sidaa laga soo saaray masaajidka israa'il kaa kursiga lagu siday intay u adkaysan weyday markii masaajidka laga soo saaray ayaa faantannimada cirka mara inta loo soo dira gantaal lagu dhuftay
يعني ninkaasi hamu siday jidna intaasu ka yahay itaalkiisu waa carabka dhaqdhaqaaqaya aqligana wuu qabaa laakiin isma oran muqcad baatay qof fadhiya baa taan waxba qaban karin isma lehe wuxuu u taagayay inuu diintiisa iyo ummadiisa iyo dadkiisaba xoreeyo ummad dhan buu u ahaa maxay hoggaan ruuxiya oo hogaaminaya حركات دن أو جهادية أو استدفاعية أو وحسكربية دولة دن أو دنيا واوين بوات كيسان كارلا نينكاسي أن وحبا قبان كارين يا كرسي اللي وجهي ديو أيوات كيسان كرواية همي قصران حاجة قال كان يدك تصيو ساينسيها كمان تا علمك فيزيكس كدنيا وعن سنة ملحد كيلا كتب ما أنت عن كاله شنو مقعد واسيدا نينكاسي يوكاله وكرسيga ugu sareeya Cambridge University kursigu Newton fadhiyi jiray waa ninkii fadhiyay dhawaan baa la siiyay taqaacud inuu ka fadhiisto waa Stephen Hawking waa nin Ingiriis ah oo isagoo 12 jir uu ku dhacay shalal oo jidhkoo dhami shalal qabo oo aan meelina dhaqaaqaynin codka mishiin baa ka soo saara waana theoretical physics ka dunida ugu qiimaha badan le maanta ee la tilmaamo waa ninkan le maxay قضايات كان نقول المامو إن ملهن مدوي عركة لا شيء the black holes أركتيه دي سيء وحكو صابسن وأخويا هنك الدنيا ده هو قابنية هذا الكمشين بقى صارة مل دقائق سامتشرو مو يصورن ور مقعد بات يعني مالنا ونولينه هنك يسوحوا قارسي أخويا هنك الدنيا ده هو قابنية علم فيزيكس كأنه هالكاسر نقطة إن لبن إنه الصحابة ده كم ده هي سوهي جرودي دبيتنا طلحة بن عبيد الله وصحابي اللي ورنشري بي لدقه لبضن وي جهاد قالين مركا اي جهاد قالين ايام ميدي شهيدنا ما قاطي متكي كاله ولا من انه صو اسلام واسلام نمدودو في عناتي ونبي قال دغال قالي ميد با دغالدي شهيد كو نقدي كي كلنا سنة كلوسي نولاد بشي كو حكتين رمضان نوات شوقوا دبتنا سعادي وقيريود طلحة بن عبيد الله صحابي اللي ورنشري ايها وحو يري الريان اركي الرياد السديدة قد تكون حقا وقد تكون خزعبلات يعني النبي عليه الصلاة والسلام حقوت المامية النبدي وحكا هاري وحكا ميدا محي الرؤية الصالحة مركا الرياض دبنا وان نقطة باطل يوسكا دبنا وان نقطة سحابة نقول الرياضي وحكو الرياضي إيادو جندي إيجاليان دبتنا صدح ديادان وحين بوليا أنا إيا لبدي نينا كالي لبدي نينا كالي كي دنباد دنتي يعني جهادك كود دمانين إيا ليدي سوغل كي بها له الرئيسية هرقالي دبتنا كي شهيد كهابا كدبا قالي أنا إسيري قالوا هذه ولي ما يقاري وقتك أجيبها ليدي بويدي مركا هو صوب راروغي رياضي بافافتي نبي قال الله شيغي نبي عليه الصلاة والسلام حكوا لهم حاول يا بيسان وإلى إلهي رسول كيسيو لبضا ننكي أنو سلاهين دوا ددال بدن شهيدو بي كي كلا جنة كهر قالي تبتنا نبي حكوا لي أليس قد مكث هذا بعده بسنة وكان ميانو سنة كان لول دنبين من نبي كويلي مركز الله يدي ها وكان لول دنبي وميانو رمضان تي دنبي سو قاعدين من نبي كويلي هاي وسو قاعدين بالليل وسو مسومين ومصلادين ومساجد كم كمتو كان إن سنة من نبي كويلي عليه الصلاة والسلام مركز الله يدي ها فما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض من نبي كويلي حديثك كان ابن ماجه سور إنه علماء الصحيح كنت الماميان وحنا بقول أي لبدو ده أجر كودا أنت ولا حيسا عركي يدولك أنت ولا حيسا إن لك ولا حيسا يعني إنكي الشهيد نمدا قاتي سنة كي هو كريم حوك جبدية أعماشي وصمايستي سنة كي ونولاي كم إذا هيدا والنبي بقول أي ونكم يوم رمضان سو قاعدين عنهم كاسي سيم مغنى سو كلمة شوقي من النبي نبي محمد صلوات الله وسلامه عليه قبائل باوي يمي waxay yidhaahdeen diintaanu rabnaa inaanu si fiican u baranno waa kaase waxoogaa nugu darraggaaga ah
toban saxaabiyo rag waaweyn ay ku jiraan buu ku daray tobankii saxaabi inta meel cidlaa lala tegay ayaa dhegta dhiigga loo daray ala bireey qabiilooyin unbaa isugu yeedhay oo waxaa la yidhi intan baynu ka haynaa raggii laynaga dilay hebel iyo hebel aan uga aarun baa la yidhi tobankii ay nebiga ka soo kaxeeyeen tobankiiba way dileen 7 macrakaday markii hore ku dileen isdhiiba bay 3 idhaaheen way idin daynaynaayoo markay isdhiibeen bay xadhigga u adkeeyeen mid baa diiday oo kii labadii soo hadhay na quraysh bay ka iibiyeen oo yidhahdeen waa tii berigii beder wax laydinkaga laayay yaa aabihii u aarayo aanu nin saxaabiya ka iibinaa bay idhaaheen laba quraysh ka mid ah ayay ka iibiyeen oo yidhahdeen annagana waxoogaa na siiya kuwana aabayaashiin uga aara dhacdadaasi markay dhacday labadii quraysh laga iibiyey mid ka midoo xidhan ayaa markii la dilayay wuxuu yidhi muus ha lay siiyo muusku waa baalka lagu xirxirto shaving material ah waxaa lagu shave garaysto waa la siiyey muuskii yaraa isagoo hayaa kuwii dilayay ilmo yaroo ay dhaleen baa u yimi oo dhabta ka soo fuulay gabadhii ilmaha yar dhashay baa gergariirtay markaasi oo naxday dee ninkii ay dilayeen ee dilka ugu xidhnaayo oo midi yarna haysta ayaa ilmaheediina uu dhabta ka fuulay dabeetana wuxuu arkaysa wuxuu ku yidhi waxba ha cabsoonin maa kuntu liafcala hada ma inaan dilaabaad ka baqatay buu yidhi ha ka cabsoonin inaan kan dilo waxay yidhahdaan culimmadu qisadan waxaa laga faa'iidayaa alwafaa bilcuhuud xataa ka ku khiyaameeyey inaan la khiyaamaynin kuwii khiyaameeye soo xidhe iibiyey inaan ilmo carruuro ay dhaleen loo dilin ilmo carruura oo ay dhaleen iyaba waa kuway dilaya hadhow maxaa yaryarkoodu u noolaanayaan inaad odhanin islaamku kaama yaqaano walidaalika baa saxaabiga kani isagoo dilu xidhan oo la rabo in la dilo oo ilmahooda yar ay ku soo cararay oo dhabtiisu ku dhacay isagoo muddo haysta marka islaantii gariirtay wuxuu ku yidhi maa kuntu liafcala hada ha u malaynin inaan waxaa samayn kara anugu ma samaynayo qisada labaadaan tilmaamaya waxay tahay iyadoo nebiga taasi ku dhacday ayaa haddana qolo kale u timo waxay idhaahdeen kuwii daliya qaara niman la yidhaahda bay ahaayeen iyo bani lixyaan nimankii la odhan jiray reer hudayla qolo kale u yimi nebiga oo racliya dakwaan la yidhaahdo waxay idhaahdeen annagana bal cidhana lagu daro diintu kama foga agagaarka iyagoo waa la aqbalayaaye 70 buu nebigu iyagana ku daray masaladani maxay tilmaamaysaa waa la laynayaa dadka inaan dacwo loo joojin inaan diin in la faafiyo waana la laynayaa inaan looga baqin waayo 10 hore uu diray nebigu in la diluu ogaa haddana markii la yidhi dacwaan weli u baahanay 70 buu dirayaa taa macnaheedu waxay tilmaamaysaa in diinta la faafiyo in loo aqbalo khatar kasta inuu qofku aqbalo inuu ilaahay dartii u dhinto maadaama uu faafinayo maxay ilaahay kalimaadkiisa subxaanahu wa tacaala maadaama uu dad diin ugu yeedhayo walidaalika buu nebigu ma odhan war horaa 10 layga dilay ciddanba bixin maayo wuxuu faafiyaan balliquu canii walow aaya buu taagnaa war aayadda ha noqotee dadka ha layga gaadhsiiyo markaasuu nebigu yidhi 70 kale siiyey kuwa kana qoladanina 70kii bay kaxaysteen meel dhexe markay marayeen bay qabaa'il u heshiiyeen dabeetana nimankan aan laynay baa la yidhi ninkii waraaqda siday nebigu uu soo dhiibay qolada madaxdaa loogu dhiibay isagoo meesha fadhiya midintu xagga dambe iska soo taagay waran geliyey waa la dilay 70kana waa la dilay maxaan mas'alada tanna u soo qaadanayaa labadan mas'alo ee rajiic iyo macuuna waxaan soo qaadanayaa hal shay inaan ogaano oo caqiidada islaamiga ku saabsan waa mas'alada ah qaybka in ilaahay uu ogyahay subxaanahu wa tacaala nebiguna intii loo waxyoodo quray inuu ogaa hadduu nebi maxamed qaybka ogiyey 2 goor lama dileen raggiisa hadduu qaybka ogyahay maxay lama dileen walidaalika baa ilaahay qur-aan soo dejiyey uu leeyay qul laa amliku linafsii nafcan walaa dara
nabi maxamedow dadka waxaad ku tidhaahdaa war anigu lafahayga uma hanto waxtar iyo waxyeello toona ilaa maa shaa allahu mooyaane ilaahay wuxuu doono mooyaane walow kuntu aclamu alghayba lastakhartu min alkhayr waxaad tidhaahdaa baa ilaahay leeyahay haddaan haybka ogahay khayrku maan badsan lahaa shar oo dhan ba waan u goyn lahaa de duu nabigu haybka ogaya ma shar baa haleeli lahaa waa inuu u jaraa un dee shar meeshuu ka soo socda waa inuu dhinaca kale ka maraa ولذلك بقى إلهي وحي وحد هذا ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء غيب هدان أوغاهي خير كنوان بتصلها بناء محل الشين دبا إلهي سبحانه وتعالى إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون واحد كنت هذا ورنا شق ضيده وإن اندقه وبشاريه دد إلهي الرومينية مسائل كان صلوات الله وسلامه عليه بلبو نبغو هبارتمي صحابة لقى الله يدرادي هل بلا أي صلاة كستقنودي سقى هبار يلا ودي قبيل مو هبارتماني وسكع علين لها مركه هرو رقي سكع عشان لها دوغي هاي محي غيبك رستم مركي أي دقالمي المسلمين تي صحابة دي رستم جنن كي هقامين عيدا مدي بيرشيا إيران عيدا مدي ayaa waxa la isku galay qaadisiya meel ku taala haatan wadankan Ciraaq loo yaqaano waa intaan madaayina Ciraaq bay ka tirsantaa rajaynaya la furanin waxay dagaalkii markuu muddo socday codsadeen nimankii gaaleed bal muslimiintu inay cid soo diraan hal wada hadlee Sa'd ibn Waqqas saxaabigii la oran jiray wuxuu u diray saxaabi la yiraahdo Ribci ibn Aamir ribci waxa loo diray inuu wada hadal la soo sameeyo janankii ama boqorkii watay ciidamada gaaleed dabeetana wuxuu u yimi isagoo faraskiisii yaraa wata oo hubkiisii xidhan ayuu meeshii yimi boqorku wuxuu ku talagalay ninka kan inuu nafsad ahaan jabiyo dabeetana waxa la dhigay red carpet wada taqaanay Soomaha madaxdu markay dawladda ka soo degayso kacase la dhigo soo ma taqaanin ay soo dul socdaan red carpetiskaas meel walba la dhigay dabeetana sariir buu boqorkii dhigtay wada dahab iyo waxaasi ka samaysan si uu halka ugu qaabilo ninkan muslimiinta u imanaya ninka muslimkii waa nin dagaal ka soo baxay faras yar iska wata oo 4-5 bilood dagaal ku soo jiray oo rafaad baad ka muuqda nin dagaalansan oo soo socday waxay yiraahdeen boqorka looma tago adigoo hubka sitee hubka dhig wuxuu ku yidhi anigu idiin ma iman idinka ay yeedhay hubkayga ma dhigay anigoo waxayga sita hadaa rabtaan inaan u tago waa u tagay hadii kale waa iska noqonaya boqorkii baa loo tago waxa la yidhi boqorow ninkii wuxuu diiday inuu hubka dhigo yani waa aragteen oo de madaxda hub loolama galo waayo dadka kanimaha dad ilaahay aaminsan oo iskhiyaamaynayaan لكن نيكا مسلم كاي قول كيسو كو دقما ساسي درادد انتو قول سمايو غدري كما دميسي وحما خيامايا هدنا وحو هوبكايغا دغي مايا انيغو هوبكايغا سيتا هدي لو باهي وانو تغيا بقرك waxa la yiri boqorow ninkii hubkii diidin uu dhigo soo daaya la yiri ma hubkiis faraskiisa yaraabu soo duleeriyay baa la yiri qadifadihii red carpet-ka aha boqorka agtiisa markuu marayay baa la yiri intuu faraskii ka daadagay ayuu barkimooyinkii waaweynaa meesha la dhigo mid ku xidhay bay dhadaan culimada taariikh mid ka mid ah barkimo hogaankii yaraa ee faraska ugu xidhay dabeetana wuxuu yimi boqorkii markaa su'aal buu weydiiyey maxaa idin soo saaraya wuxuu ka fakarayaa dadkan magaaja wadankoodii ka keentay ma waxan baa keenay haddii markaa ay tahay gaajo iyo baahi uun waxan wada dee waxbaa la idin siinayaa iska noqda baa la rabaa in la yidhaahdo maxaa idin soo saaray baa la yidhi wuxuu ugu jawaabay markaasi ilaahay baa na soo bixiyey waxaana naloo soo bixiyey inaanu dadka ka saarno dulmiga diimaha aanu u saarno cadaaladda islaamka inaanu ka saarno cidhiidhiga adduun waanu u saarno ballaadhkeeda isagaa cidhiidhi dad ka saaraya min dayqi dunya ila sicatiha cidhiidhi adduun buu ka saarayaa ballaadh buu geynayaa ninka kani muxuu rumaysan yihi meeshaan uga socda baytulqasiidku waxa weeyaan ninkani wuxuu rumaysnaa inuu isagu yahay ustaadkii dunida loo soo diray professorkii loogu talagalay inuu caalamka wax baro muxuu barayaa wuxuu barayaa waxyu samaa warkii alluu sidaa ninka ilaahay warkiisa sidaana cid kasta isagaa ka aqoon badan salaad buu nabigu galay
masaajidkii nebigu sida kuweenna kan qatiifadahan iyo waxaan ima oolin masaajidkii nebigu cariish buu iska ahaa caleentan timirta ka samaysan guduhuna ciid yahay dabeetana dadku markay doonaan iyagoo kabahooda sitay la soo geli jireen masaajidka iyagoo kabahooda sitana way iska tukan jireen nebiguna wuxuu u sheegay kabihiinnu haddii aad dabadda ku soo marteen dhulka ku xoqo unoo ciiddaasaa idiin daahirinaysa nebigaa salaad galay saxaabadiina way ka daba gashay ka daba xidhatay kabahoodiina waa xidhan yihiin nebi maxamedna kabihiisii buu xidhan yahay calayhi salaatu wasalaam saxaabaduna kabaheedii bay xidhantay salaaddii bartanka markay marayso ayuu nebigu labadii kabood bixiyey saxaabadiina iyagoo salaadda ku jira ay iyaguna labadii kabood iska bixiyeen walla salaaddii lagama bixin nebigu isagoo salaaddii ku jiru kabaa bixiyey saxaabadiina iyagoo salaadda ku jiray kabihii bixiyeen markuu nebigu salaadda dhammaystay ayuu wuxuu yidhi waxaan arkay idinkoo kabaha iska bixiyee maa xamalakum calaa ilqaa'ikum maxaa idinku xambaaray inaad tuurtaan nicaal kabihiinna inaad tuurtaan maxaa kaba isaga bixiseen ayuu nebigu weydiiyey calayhi salaatu wasalaam waxay yidhahdeen waxaanu aragnay adigoo kabaha iska bixiyey dee annana waa iska bixinay markaa u fiirso saxaabadda dhaqankoodu wuxuu joogay inaanay nebiga su-aal calayhi salaatu wasalaam su-aal weydiin maxaad kabaa u bixisay inaan la odhan inaan la odhan waa barorta kabaheenna aynu iska gashanaanno hadhow baynu weydiin doonaa bal hadda wuxuu kaba ilaahay qoladaa jabiyey oo banu quraydo xaggeeda la qabtay oo ah reer banu quraydi nimankii yahuudeeda ka baxay ballankii ay nebiga kula jireen ayuu nebigu wuxuu ku yidhi saxaabadii la socotay qofkiina yuu tukanin salaada casar banu quraydo meel aan ahayn laa yusalliyanna axadukum alcasra ila fi bani qurayda qofna salaada casar yuu tukanin banu quraydo uu gaadho mooyaane masaladan waxaynu ka garan doonaa haddii nas qur'aan ama xadiida fahamkiisu uu dadku kala fahamu ku yeesho inaanay bannaanayn in lagu kala guuro ama la isku dilo dadka muslimiinta dhexdoodii sidaa awgeed qoladan wuxuu nebigu faray qofna inaanu salaada tukanin ilaa iyo banu quraydo la gaadho mooyaane markii dhexda la marayay ayaa casar soo galay dabeetana qola waxay tidhi waryaadhay dee salaaddii way naga tegaysaa dagaalkiina waynu ku jirnaaye aan casarka u tukanno dabeetana intaynu istaagno casar tukanno aan ku dareero qolana waxay dhahaan may halkii uu nebigu yidhi istaaga inagoo istaagna mooyaane salaad dambe tukan maynayna wada qola waxay leeyihin warheedhe laa yusalliyanna axadukum alcasra ilaa fi bani qurayda nebigu wuxuu uga jeeday salaada wakhtigeedii baa la bedelay umuu jeedine wuxuu u jeeday degdega oo yacni dhaqso u tagaba waa looga jeedee salaadu waa wakhtigoodii ina salaata kaanat cala almu'miniina kitaaban mawquuta nusuus salaada raraysa ma soo degine salaada casartee casarkeedii aynu tukanno ee nebigu wuxuu inaga rabayna inaan meelo kale u jeesjeesanin oo aynu meesha gaadhno qolo kalena waxay dhaaheen war suga marka hore yaa ku yidhi adiga wakhtiga casarku markuu liiqa gaadhay halkaase tuko yaa kugu yidhi nebiga soo nebigu ma xadaynin marka horeba in wakhtiga la tukado haa maantana isagaa yidhi yaan laba tukanin bani quraydo la taga mooyaane amarka dambaanu raacaynaa bay dhahay ila ta horeba nebiga xadeeyo tukanin ilaa iyo wakhtigaa tukada iminkana isagaa yidhi yaan maanta halkaa mooyaane meel kale casar lagu tukanin qoloba fahamkeedii bay iska qaadatay qolo waxay dhaheen war anagoo tukanayna salaadoodii casar bay iska tukadeen dabeetana waa dhaqaajiyeen qoladii kale waa socdeen siday u socdeen baa cadceeddii dhacday waa wadeen maqribka dabadiisii bay gaadheen banu qurayda markaasay casar tukadeen nabigaa loo sheegay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh wixii ay sameeyeen waxaa la yidhi dee markaanu dhexda maraynay baanu isqabannay qolana waxay dhahen war salaadda wakhtigeedii waa joogaan tukanno qolana waxay tidhi halkaa
labadii qolana nebigu ma canaananin salawaatu ullaahi wasalaamu calayh waayo labadaba dantooda waxay ahayd inay muraadka nebiga fuliyaan warkii nebiga inay fuliyaan bay labaduba rabeen laakiin sidii ay u fahmeen ama u fasireen uma kala gadisnaatay walidaalik waxaynu qisadana ka fahmaynaa masaa'ilka ijtihaadiga ah ijtihaadku haddii laba ra'yo kala gadisan labada caalima muslima ka ijtihaada yidhaahdaan macnaheedu maaha in dadka shan kooxood laga dhigo nina yidhahdaan kayaga ku fayla nina yidhahda kayaga ku fayla ee waa inay dad walaalo muslimiin oo weli hadafkii iyo wixii baa isku markii muslimiintii maka joogtay gaaladu ay dhibtay aad dhibaatadu ugu badatay ayuu maalintii dambe أبي بكر يصير هجرة نلقى حبشة دي مالها اسكقبو مكو كبحة ميل برك الغماد اللي يدهده مركو مريو أي واحد لكل مي ابن دغنة نين اللي يدهده نين كان هو أضيق قبيلة قارة اللي يدهده مشركين قبيلة قالت أيوه هي سلطانة ما وقاسة ما عاقل وحين شاقنا نكي باو حكو يدي أبي بكر بوقرتي ورا أبي بكر وأين تريد يا أبي بكر حاجات وسعتها أبي بكر وحيري أخرجني قومي تلك يبقى يصوص عري مكة كمان بحينه تلك يبقى يصوص عري دبتنا وحان ربا نلك إلهينا اسك الصعود ربي عابده صايحنا النقضة صايحة وحلا يدا برجع ورا وحشري شري دد عبادة يسقب حص صفرة وميلا يوصعدان وقاري ياري شرين سكنا غاغون waxaan rabaa buu leeyahay inaan saaix dhulka ilaahay ku noqdo oo ilaahay carrigiisa ku caabudo oo iska tagay le tolkay isaar buu leeyahay ibnu daghina wuxuu ku yidhi abi bakar oo adigoo kale nin la saara ma tihid macquul maaha yani abi bakar oo kale in la soo saaro waayo in lagu saarana ma aha inaad adna iska baxda taasina sax maaha buu leeyahay sababtu waa maxay fa innaka tuksibu almacduum وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق وحكو يري أدقو waxaad ahaan jirtay dadka aan waxaysan qof waxsiiya waxaad ahaan jirtay dad nin qaraabada xidhiidhiya waxaad ahaan jirtay qofka culus nin culayska ka roga waxaad ahaan jirtay nin martida soora waxaad ahaan jirtay mashaakil oo dhan nin dadka uga gargaara Abu Bakar markaa maxaa lagu sifeynaya qof naaficad bulshada ku dhaxayd baa la leeyahay qof wax tara oo bulshadu waxay u baahan ninkan waa nin gaaleed kama warramaya aakhira iyo dadkaad hanuunin jirtay kama warramayo isagu wuxuu wax ka warramaya waxtarkii adduunyo saadaradeed wuxuu leeyahay war nin tolka xidhiidhiya oo masaakiinta wax siiya oo dadka dhibtu ku timaado dhibta ka qaada oo martida soora oo nawaa'ib alxaq oo dhan dadka ugu gargaara baad ahayd saadaradeed nin la bixiye ma tihid buu leeyahay ibnu daghina weedha uu ku leeyahay abi bakar waa weedhii khadiija ay u daliishanaysay nebi maxamed nebinimadiisa khadiija radia allahu canha markii nebiga calayhi salaatu wasalaam waxyuu ku soo degay koowaad wuu cabsaday isagoo cabsanaya buu guriga yimi oo le iddada oo ay ka khadiija markaa waxay tidhi wallaahi laa yukhzika allahu abada ilaahay baa ku dhaartee inaan rabbi weligaa ku hoojinaynin nebi maxamed haddaad tahay balaayo arki maysid bay leedahay waana waxyigii ugu horreeyey waayo maxay sidaa u leedahay dhaqankiisii bay ka warramaysaa intaan abi bakar lagu sifeeyo kale ku sifaynaysa waxay leedahay waxaad ahayd nin qaraabada xidhiidhiya oo dadkaan waxaysan wax siiya oo dadka dhibtu ku timaado dhibta ka qaada oo martida soora oo wanaaggaasi sameeya qof wanaagsanna wahal jazaau lixsaana ila lixsaan de qof wanaagsanna alle subxaanahu watacaala dhib ma tusiya bay leedahay nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam dadkii u shaqeeyey waxaa ka mid ahaa wiil yaroo yuhuudiya ayaa nebiga shaqaalihiisii ka mid ahaa dabeetana maalintii dambe waxaa loo sheegay wiilkii inuu xanuunsanayo oo gurigii aabbihii uu jiifo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuu soo baxay dabeetana gurigii wiilkuu yimi wiilka madaxiisuu fadhiistay wiilku aad buu u xanuunsanayaa marka nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam wuxuu arkay inuu sii socdo
aslim buu ku yidhi waryaa wiilow war islaam wuxuu ka cabsanayaa nebigu wiilkaasi intuu gaalnimo ku dhintay inuu cadaab gala de dabeetana wuxuu ku leeyahay nebigu calayhi salaatu wasalaam war islaam wiilkii markaa aabbihii buu eegay aabbihii baa wuxuu ku yidhi aطic abalqaasim maqal wuxuu nebi maxamed kuu sheegayo yuhuudda iyo dadkii wakhtigaa noolaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam inuu nebi iyo cid waliba waa garanaysa laakiin dana iyo masaalix kale iyo wax kaloo ilaashanayaan bay u diidanaayeen waxaad ka garan kartaa kuwii ugu waaweynaaye ka soo hor jeeday muxuu aha abujahl abujahl culamaa'i taarikh waxay soo naqlayaan inuu lahaa reer banu hashimi annagu waanu beretami jirnay laba qabiilo loolamaanu ahayn waxbay bixiyeen waxbaanu bixinay kanbay sameeyeen wax waloo ay sameeyeenba waa la samaynay buu leeyahay nagamay badinin haddaan reer banu makhzuum nahay nagamay badinin reer bani cabdimunaafkani ama reer bani hashimkani nagamay badin ilaa ay markii dambe sheegteen buu yidhi nebi baa naga mid ah haddaanu anagu nebi weyne buu yidhi wallaahi baa nankooda u rumaynaynin abijahl wuxuu naarta la galay qabiil buu difaacayay suu reer u difaacayuu naar galay reer hebel hadday nebi heleen buu leeyahay annaguna aanu nebi weynay kooda raaci mayno haddii aanan nebi helaynin nebigu calayhi salaatu wasalaam markaa inuu nebi yahay dee mucjizaadkiisii baa muuqday dhaqankiisii baa muuqday akhlaaqdiisii baa muuqdatay waxyiga ku soo degayaa muuqday cid waliba waa garanayso aragtaa inuu nebi yahay laakiin masaalix kale dadku markay masaalixda ilaashanayaan hiraqal boqorkii la odhan jiray markii looga warramay nebiga calayhi salaatu wasalaam tu waraaq u diray nebigu uu akhriye looga warramay ee uu waraystay nimankii safarkee u yimi oo 14 su-aalood ama 13 su-aalood weydiiyey ee backgroundkii nebiga oo dhan loo sheegay ayuu wuxuu yidhi sidaa aad sheegaysaan hadduu yahay halkaa aan fadhiyaa buu qabsan doonaa haddaan awoodana waan dhaqaaqi lahaa buu leeyo meeluu joogo haddaan tegi karayo cagihiisaan maydhi lahaa buu tilmaamaya dabeetana wuxuu isugu yeedhay xaashiyadii boqortooyadoo dhan iyo wadaadadii kiniisadda iyo wixii o dhan buu isugu yeedhay wuxuu ku yidhi warrinkaasi wuxuu sheegayaa waa xaqa aan raacno albaabadana uu soo xidha meeshii uu kula shiraya albaabadu wada xidhay tana wuxuu ninkaasi waa xaq wuxuu sheegayaa aan raacno mar quraa la qayliyo waa la cararay bes soo noqda buu yidhi idinkaan idin eegayun mowqifkiinu meeshuu taagan yahay dee kursigu waayayaa ilaane siyaasiyiintu diin la-aanta in badan kursigaa badda oo haddaad kursigaa ka riixi mayso wuxuu is yidhi kursigaaga hawaaye marka hiraqal wuxuu naarta ugu xagga gaalnimada ugu sii socday wuxuu ilaalinaya kursiga idan nebi maxamed inuu xaqiya uu garanayay odagan yahuudiga markaa inankiisii wuxuu ku yidhi yaraa aطic abalqaasim waxa uu kuu sheegaya aqbal dabeetana wiilkii yaraa baa ashahaatay islaamay nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ku farxay markaa islaamnimada wiilkan yara wuxuu leeyahay alxamdu lilaahi aladii anqadahu min annaar waxaa mahadle waan mahadinaya waxaan ammaanaya ilaahay kaa yar naarta ka badbaadiyey wiilkaa u shaqaalaah buu nebigu wuxuu kala cabsi qabay inuu naarta galo idinku kuwa idin shaqaalaha maxaa ku samaysaan wax diinta u sheegay miyaa leedihi mise waxaad tidhaahdaan markay sii baxaysana sii baadh inta kalena ha shaqayso yacni materialkunbaa ka fekertaan waxay dadkan inaa badbaadisaan hadduu kaa soo hor baxo qof bini aadan oo gubanayo dab sudan yahay maxaad samayn lahayd waxaad isku dayi lahayd inaad demiso socankaa ma aha qof bini aadan oo gubanaya hadduu kaa soo hor baxo asaad baktiin karto waxaad isku dayi lahayd inaad demiso qof bini aadam oo indhale hadduu kaa soo hor baxo god daba ku socda maxaad yeeli lahayd meeshanoo dab ka shidan yahay labada indhoodna ula iyo uu kusii socda maxaad samayn lahayd waad ka qaban lahayd xataa haddaanad ka qaban karin waad qaylin lahayd warka joog ka joog baad ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ina faray oo inoo tilmaamay tasbiixda iyo weynideeda bale ilaahay ambiyadiisu inooga warramaya qur-aanka oo nebi ka midi ilaahay uu tilmaamaya wadiifatu nubuwa inay ka mid tahayba tasbiixda iyo waxa uu u dalbaday nebi labaad in lagu kaalmeeyana inay ka mid tahay inay tasbiixsadaan wajcal lii wasiiran min ahli haaruna akhi ushdud bihi asri waashriku fii amri muxuu u dalbaday waxaasoo dhan kay nusabbixaka kaiira wanadkuraka kaiira buu leeyay ilaahayo waxaan kaa dalbayaa buu leeyay haaruunna inaad nebi iiga dhigto
walaalkay haaruun inaad nebi iiga dhigto oo igu xoojisid oo arrinka ila wadaajisid waayo kay nusabbixaka kaiira wanadkuraka kaiira markay kaalmada dalbadeen fircoon loo dirayna ilaahay muxuu ku yidhi idhabaa ilaa fircawna innahu tagaa maxaa fircoon markuu tegayay la yidhi walaa taniyaa fii dikri baa ilaahay yidhi fircoonkaa xoogga badan leh ee askar iyo ciidan iyo wax kastaba haysta u taga baa ilaahay yidhi zaadkiinnu laakiin waxa weeyaan walaa taniyaa fii dikri ha ka noogin aniga xuskayga subxaana allahi wabixamdihi iyo laa ilaaha illa allah iyo wixii la mida kuwaa ha ka noogina baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala ayuha alaxiba ilaahay nebi yuunus baynu saynu soo sheegnay uu kaga warramay nebiyullaahi muusa ilaahay ka warramaya markii nimcadu u cusboonaatay rabbigii markuu weydiistay intuu jeclaaday inuu arko ilaahu aan ku arka la yidhi ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yidhi arki kari mayside bal hadda buurtan eeg hadday buurtu taagnaato waa suurtagaladna inaad i aragto buurtii baa dhalaashay falammaa afaaqa qaala subxaanaka tubtu ilayk markuu miiraabay baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala wuxuu ku bilaabay subxaanak tubtu ilayk ilaahayow adigaa ceeb ka dheer ceeb iyo xumo adigaa ka dheer waa kuu toobad keenay buu leeyahy wa ana awalu lmu'miniin baanan ahay ka koowaadee ku rumeeya inaan adduunka laguga arki karin nebiyullaahi zakariya markuu dalbaday inuu aayad helo ilaahi buu barye cajab qabta karaamaadkii maryan markuu arkay ayuu barye cajab qabta ilaahay weydiistay rabbi innii wahana alcadmu minii washtacala ra'su shayba walam akun biducaa'ika rabbi shaqiya ilaahay buu barye cajab la barye baryadu baryayaa waa maxay waxaan dunida ka suurtagal ahayn buu ilaahay u sheeganaya laakiin wuxuu leeyahay adiga agtaada waa ka suurtagal ilaahu aniga madaxu way caddaaday oo waa gaboobay oo islaantaydii waa gabowday oo wax ma dhalayso markii horena caaqir bay ahayd da'ina waa u raacday iyadoo yaroo caaqira waa laga yaabaa inaad tidhaahdo mala haddii uun meel la taabto way iska dhali doontaa laakiin xadkiiba waa dhaaftay baa rabbigu ayuu ku tilmaamayaa nebigu sidaa markuu sheegtay ilaahay wuxuu yidhi waa ku siiyey ilaahu aayadii yeel buu yidhi waxaa la yidhi aayaddu waxa weeyaan 3 maalmood baad aamusnaanaysaa laakiin rabbigaa waad u tasbiixsanaysaa waad xusaysaa aayaddu waa taas baa la yidhi qaala aayatuka anlaa tukallima annaasa 3 ayaamin ilaa ramza wadkur rabbaka kaiira wasabbix bilcashiyi walibkaar وصبح بالعشي والإبكار إلهي سبحانه وتعالى عيسى كورم يا نبي الله عيسى دبتنا وحل يدي عيسى وماذا يريدتك أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله إلهي بقول لقنا يوحور لها قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إلهي سبحانه وتعالى نبي الله محمد بوح والرمية قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين قل بل قلي نبي محمد عليه الصلاة والسلام وحتى هذا واكن جد كيو سجانا دت كوجي الراعيانة أنا جاي أنتي الراع ضيبة وسبحان الله وما أنا من المشركين كل واقبال لي إلهي وحين ورمياه مخلوقات كأكتي سكد الدو ملائكة الله إلهي الشقد ودبينيتي وإنا لنحن المصبحون بيلين وإنا لنحن المصبحون جملة اسمية لا أتكيي أدوات التوكيد ليس جوجي أي كشيغان يان ملائكته شقد ودبينيكاتي وإنا لنحن المصبحون إلهينا وفريا وحلي يسبحون الليل والنهار لا يفترون يقولون واشيكتين ربنا واشيك ربنا وحلي يسبحون الليل والنهار لا يفترون
kala go' ma leh وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم إلهي وحين أغورم يا جنة دتك اللقيانة إيانا شقدود ويني كانطي دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين سبحان الله وبحمده أي يغنى شقدود أبا إلهي سبحانه وتعالى أيها الأحبة هدي قرآنك سيدا وبالبلاديي انت النصوص كتغي انا سو قادننا اي كبدنت انت ان شيغي وايو قربان السلوان قري كري واي قرآنك انت كسو ارورتي تسبيح هي تحميد ترمله اد بي وبدنتي إلهي سبحانه وتعالى ينفريو غور والبا وقت كستو آدنا وشيغي كراون قرآنك waxa ku taala iyadoo la leeyahay tasbiixsada subax habeen saqar dhaxay waa bari xidiga dhacgo goor kastaba Ilaahay wuxuu leeyahay tasbiixsada idan tasbiixdu waxay ka mid tahay wardiga marka hore mutlaqa bay ka mid subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سيقاد أتربد أن السنة النبي عليه الصلاة والسلام بوصارت قاببك الله تصبيح سنية أحاديث تهداد أخذ النبي عليه الصلاة والسلام جذر الصبح كصاررتي أما حمد كصاررتي أدبي أتربد ينينا تلمامي النوعيات كالتصبيح ذا الله لي ماده دي صلاة الدمان تيدنا صبح باب الله هذا ولذلك بعلماء وحده صبحة والضحى أما وك عمر لقاش قالوا لو كنت مصبحا لا أتممت علماء بدبايد هذا الصبح هذا أنت بدنت السنة الله هذا لكن مفسرين بدن باب وحي قبان مع التكلين الله هذا قورما وقت والبوالة تسبيح حالة كستات كتشرته مركاد يابتا سبحان الله الله هذا marka dhibi ku qabsata subhanallahi wa bihamdihi la yiraahdo marka nimcaad hesho ama ay ku cusboonaato ayaa la yiraahdo farskaaga markaad fuulaysaa la yiraahdo ama daabadaada gaarigaaga subhanalladhi sakhara lana hada wama kunna lahu muqrinin nimca cusub markaad hesho sidii nabi Muuse la yiraahdo subhanak markaad ducaysanaysaa la yiraahdo fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu markaad dambiga qiranaysaa la yiraahdaa qisadii suuratu nuun ku taale asxaabul janna qaala awsatuhum lam aqul lakum lawla tusabbihun qaala awsatuhum alam aqul lakum lawla tusabbihun idan xilli kasta hadday dhib ku haysato hadday nimco ku haysato haddaad yaaban tahay haddaad wax kasta oo duruufaadka ka mid ah waa la tasbiixsadaa tasbiixdaasi midhahaad ka goosanaysaana koo wayna dembi dhaaf hesho nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy man qaala subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi alcadiim fii yowmin 100 mara gufirat dunuubuhu wain kaanat midla zabad albaxr qofka yidhaahda maalin 100 jeer سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ذنبي سال دافا وإن كانت مثل الزبد البحر حور كبدا وكلا هداي لما موجد بدا هداي لك تهي والله دافا ابو النبي عليه الصلاة والسلام ذنبي قال لو دافيا وحي شده يدبكو هيستا لغاغا دافيا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فلولا أنه كان من المصبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون وحي عديد اللابتك هاجر لغاغ دافيا ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فصبح بحمد ربك وكن من الساجدين